vocabulary waa ereyo cusub. Vocabulary waa ereyo cusub. Measurement waa cabir. Waxay ku saabsan yihiin ereyaha badanaa noo soo socdo. Measurements waa cabirka ama cabirada. Ereyga ugu horeeyo haddaan isla fiirino number 1 height ayaa ku xusan. Height wuxuu noqonayaa dhirir ayuu noqonayaa dhir. So waxaa jira waxa la dhahayo dhirir iyo balac. So height waa dhirirka. Lambarka labaad waxaa inoogu xusan width. Width waxay noqonaysaa balac ayay noqonaysaa. Width waa balac sida guriga oo kaleeto wuxuu leeyahay dhirir iyo balac. Height-ka wuxuu noqonayaa dhirirka. Width-kana wuxuu noqonayaa balaca ayuu noqonayaa. Meter number 3 waxaa ku xusan meter. Meter waa mitir af Soomaali. Dadka badanaa Soomaalida waxay dhahaan mitir ayay dhahaan ama kaleeto cabirka mitirka. Cabirka mitirka waxaa waaye hal talaabo kaleeto. Talaabada ruux oo kaleeto uu talaabeynayo. Ruux talaabadiisa aad u fiican tahay aadna u dheer tahay. Ayaa waxaa loo isticmaali karaa hashiis talaabo hal mitir oo kaleeto ayaa loo isticmaali karaa. So meter waa mitir. Centimeter af Soomaali ayana waxay noqonaysaa centimeter. Mitirka ayuu ka yar yahay. 100 hadoo kaleeto 100 centimeter waxay noqonaysaa hal mitir oo kaleeto ayay noqonaysaa. Halka mitir waxaa ku jirta 100 centimeter. So meter number 3 aan kusoo qaadanay mitir baan dhahnaa luqadda Soomaaliga markaan tafsirinayno. Centimeter ayana waxaa la dhahaa centimeter. Okay, number 5 waxaa noogu xusan kilometer. Kilometer ayadana waa kilometer baan la af Soomaali kaleeto oo lagu sheegayo ma maqlinay. Badanaa dadka Soomaaliga ereyga English bay qabteen waa la af Soomaaliye bisle. Meeshii kilometer English ku dhahay dadka Soomaalida waxay dhahaan kilometer. So 1 kilometer 2 kilometer 1 mitir 2 mitir 1 centimeter 2 centimeter taasoo loo adeegsadaa badanaa. So kilometer-ga lagu sheegaa ayadana waxaa waaye 1000 mitir inay tahay saan filaayo. 1000 mitir waxaa ku jirta 1 kilometer ayaa ku jirta. Sidaas ayay noqonaysaa. So kilometer baan leeyahay. Number 6 waxaa noogu qoran big. Big waxaa waaye wax weyn ay noqonaysaa big. Ayadana cabirada ay ka mid tahay haddii gurigaan lagu dhaho waa guri weyn agreeted. So big house ayaa leedahay. This is a big house. Kani waa guri weyn. Okay, number 7 waxaa inoogu xusan small anoogu xusan. Small waxaa waaye wax yar ay noqonaysaa. Small. Haddii waxaa dhihi kartaa tusaale isla guriga u soo qaadan kartaa. Waxaan dhihi karnaa this house is a small house. Gurigaani waa guri yar. Ama this house is small. Gurigaani wuu yar yahay. So small waa wax yar. Number 8 waxaa ku xusan up ayaa ku xusan. Up waa kor. Marka kor laga hadlaayo cabirada oo kaleeto badanaa waa la adeegsadaa. Kor waxaas ku samee kor sidaa yeel ama kaleeto look up haddii loo kaleeto kor fiir ay noqonaysaa ama build up kor dhis ay noqonaysaa. So up waa kor. Number 9 waxaa noogu xusan down ayaa noogu xusan. Number 9 down. Down waxay noqonaysaa xagga hoose. Down hoos ay noqonaysaa. Up hadda aan soo dhahnay kor waaye. Number 8 up aan kusoo xusnay kor ay noqonaysaa. Down maxaa waaye opposite-keeda waa ka soo jeedaa hoos waaye. Haddii lagu dhaho kaleeto look down haddii lagu dhaho kaleeto hoos fiiri ay noqonaysaa. Ama build the down parts of the house haddii lagu dhaho dhis qeybaha hoose ee guriga ay noqonaysaa. Number 10 waxaa noogu xusan dozen ayaa ku xusan dozen. Dozen badanaa dadka Soomaalida waxay dhahaan dirsan ayay dhahaan. Waxyaabo dirsan oo isku xiran oo kaleeto ayaa dozen loo adeegsadaa. Dirsan baan la badanaa. Dozen waxay noqonaysaa dirsan ay noqonaysaa. Qaab kale oo tii u tafsiirino ma garanayno laakiin badanaa dirsan bay noqonaysaa. Dozen dirsan. Okay, half dozen. Kulli qofka saan filaayo dirsan wuu fahmi karaa. Number 11 numberka 11 waxaa ku xusan half dozen. Half dozen ayadana waxay noqonaysaa half dirsan ay noqonaysaa. Half dirsan. Wax ay dirsan wax isku xiran la badanaa. Markuu dozen uu yahay waa dirsan uu isku xiran yahay. Half dozen markii la hayo oo half dirsan la dhahana waa mar la kala gooyay half laga dhigo kaleeto ay noqonaysaa. Waxyaabo badanaa dirsan loo adeegsadaa marka dhanka dhismaha iyo dhanka cabirka way soo gali kartaa iyo dhanka kaleetana way aadi kartaa oo meelaha cabirka aan looga baahnayn. Half dozen waxay noqonaysaa marka half dirsan ay noqonaysaa.